horta waa salaamay tobankii dambe Ramadaan lagu jiraa Ilaahay cibaadada hanoo toosiyo kulay bishan daraama isaga soo dhamaatay sanadkan waa sanad xusan waa sanad la ilaawi doonin because cibaadada la nagu dhacday Ilaahay na cafiyo kulligeen walaalayaal ma rabin ruuxaantii inaan soo hadlo tobankan dambe laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray nin weyn oo soo galay Facebook anigu Facebook ma lihiye tal soo jaraya WhatsApp ka la soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiye cabsiye shidaaya oo dhahay fiiriye ila dhageysta farxiye cabsiisay farxiye kaba yar soo dirtirtay walaalayaal waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dadka baraha bulshada ku jira ama qaaqlayaasha baraha bulshada ugu jira Safiya Tusmo oo dhaha Safiya Tusmo u dagaalamayna dhaho walaalayaal marka hore soo balta qaabka loo dagaalamo saas looma dagaalamo saasna qof looba difaaco inaad wax iska sii biisaan si ceebaysan maahane waxaad soo kororsanaysan ma jiraan marka ninkii wuxuu leeyahay cod wuxuu wataa oo WhatsApp ku wataa farxiye cabsiye cod ay leedahay oo aniga ay ii duubtay ruuxaantii codka farxiye waxay iga duubtay habeenkii ugu horeeyay aan farxiye wada hadalnay aan Cabdi Ciise ku xiraayo waaye cod ay ugu dardaarantay oo ay leedahay biliis ha ka soo hadlin Safiyo iyo picture-ka adiga laga qaaday aad ii sheegtay hadda farxiyo ay ka soo hadlin Ilaahay dartiis iyo dadkaas loo qof cilaadeen saajiyeen walaalay macaani waxa hadda kugu dhacay waa iska barasho waad baratay uun gabadhaas iyo wixii ka suurtagalay laakiin media intaad soo gashid farxiyo Ilaahay dartiis u dhaaf oo gabadha ka soo daba hadlin clipkaas picture-kaas aad ma aragtay qaladka oo laga galay farxiye abaayay ma aragtay ka kaaftoon coday leedahay buu ahaa codkaas uu ku baxayna waa idin sheegaa marka tiri wax yar ka bacdi farxiyo waxay ka seexan weyday aad uga walwashay in aan media soo galo horta farxiye cabsiye wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn malaha oo Safiya Tusmo ayada iga sisabaysay oo igala hadlaysay marka codka I often get asked about how to get started. horta farxiye cabsiye wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn malaha oo Safiya Tusmo ayada iga sisabaysay oo igala hadlaysay inay dhibaato iyo xaqdi ka shaqeynaysan ma ahayna cod ay Ilaahay dartiis iyo qof bilaadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay in oo Ilaahay ajira ka siiyay ajir ku kororsanayso buu ahaa oo wanaag ku shaqeysanaysay marka waxa dhacday aniga Snapchat waxaan ku soo qoray Brito soo hadli doona Brito Tusmo way soo hadlaysaa haday daacad ka noqonaysa arrintan aniga farxiye cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta Tusmo qoraalkayga la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo familka Tusmo ah ay soo galay WhatsApp-ka markaas riiska codkan ku bixi doono waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hadashay farxiye lagu soo adeegsan yahay lagu dulmin farxiye cabsiye waxa laga walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay Tusmo. Are you looking to build new friendships? laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray oo inay dhibaato iyo xaqdi ka shaqeynaysan ma ahayna cod ay Ilaahay dartiis iyo qof bilaadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay in oo Ilaahay ajira ka siiyay ajir ku kororsanayso buu ahaa oo wanaag ku shaqeysanaysay marka waxa dhacday aniga Snapchat waxaan ku soo qoray Brito soo hadli doona Brito Tusmo way soo hadlaysaa haday daacad ka noqonaysa arrintan aniga farxiye cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta Tusmo qoraalkayga la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo familka Tusmo ah ay soo galay WhatsApp-ka markaas riiska codkan ku bixi doono waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hadashay farxiye lagu soo adeegsan yahay lagu dulmin farxiye cabsiye waxa laga walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay Tusmo kan dambe laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray nin weyn oo soo galay Facebook anigu Facebook ma lihiye tal soo jaraya WhatsApp ka la soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiye cabsiye shidaaya oo dhahay fiiriye ila dhageysta farxiye cabsiisay farxiye kaba yar soo dirtirtay walaalayaal waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dadka baraha bulshada ku jira ama qaaqlayaasha baraha bulshada ugu jira Safiya Tusmo oo dhaha Safiya Tusmo u dagaalamayna dhaho walaalayaal
soo barta qaabka loo dagaalamo saas looma dagaalamo saasna qof looma difaaco inaad wax iska sii bi'isaan sii ceebaysaan maahane waxaad soo korarsanaysaan ma jiraan marka ninkii wuxuu leeyahay cod wuxuu wataa oo wasaabka ku wataa farxiyo cabsiye cod ay leedahay oo aniga ay ii duubtay run ahaantii codkaa farxiyo waxay iga duubtay habeenkii ugu horreeyey aan farxiyo wada hadalnay ee aan cabdi ciise ku xiraayo waaye cod ay igula dardaarantay oy in leedahay biliis ha ka soo hadlin safiyo iyo bictureka adiga lagala qaaday aad ii sheegtay hadda farxiyo ha ka soo hadlin ilaahay dartiis iyo dadkaas labas qof oo cibaadadeenna seejiyeen walaalay macaanay waxa hadda kugu dhacay waa kolley waa iska barasho waad baratay uun gabadhaas iyo wixii ka suurtagelayay laakiin miidiya intaad soo geshid farxiyo ilaahay dartiis u dhaaf oo gabadha ha ka soo daba hadlin klibkaas bicturekaas aad ma aragtay qaladka oo lagaa galay farxiyo abaayoy ma aragtay ka kaaftoon coday in leedahay buu ahaa codkaasuu ku baxayna waa idiin sheegaa marka yaa tiri wax yar ka bacdi farxiyo waxay ka seexan weyday oo aad uga walwashay in aan miidiyaha soo galo horta farxiyo cabsiyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn ma laha oo safiyo tusma ayadaa iga sisanaysay oo igala hadlaysay marka codka I often get asked about how to get started. soo galo horta farxiyo cabsiyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn ma laha oo safiyo tusma ilaahay dartiis iyo qof bini'aadan oo ayada aan u ogayn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay oo ilaahay ajira ka siiye ee ajir ku kororsanayso unbuu ahaa oo wanaag ku shaqaysanaysay marka waxaa dhacday aniga snapchat waxaan ku soo qoray berito waa soo hadli doonaa berito tusma way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqon weyso arrintan aniga farxiyo cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkaygaa la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo faamilka tusma ah ay soo galay whatsappka markaas riisanka codkan ku bixi doono waaya farxiyo cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hashay farxiyo lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiyo cabsiye waxaa ka walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay tusmo. Are you looking to build new friendships? laakiin waxay igu kalifay kilib yaraa lay soo diray oo inay dhibaato iyo xiqdi ka shaqaynaysana ma ahayna cod ay ilaahay dartiis iyo qof bini'aadan oo ayada aan u ogayn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay oo ilaahay ajira ka siiye ee ajir ku kororsanayso unbuu ahaa oo wanaag ku shaqaysanaysay marka waxaa dhacday aniga snapchat waxaan ku soo qoray berito waa soo hadli doonaa berito tusma way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqon weyso arrintan aniga farxiyo cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkaygaa la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo faamilka tusma ah ay soo galay whatsappka markaas riisanka codkan ku bixi doono waaya farxiyo cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hashay farxiyo lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiyo cabsiye waxaa ka walwalsan yihiin hadli doonaa berito tusma galay whatsappka inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay marka snapchat waxaan ku hadlayaa iska gogo'aya dhimanaan muhiimadda waa soo dhaadhicay laaye marka farxiyo cabsiye waxaan ku iri marka waxaan dareemay oon arkay oo weliba dacaadi laygu sheegayaa inay farxiyo cabsiye ninkay isku faamil yihiino adiga waa lagu soo adeegsano yaana tusma qalan lagaa fahamsiino yaana qad lagugu dirino war tusma maxaa laygu diraayaa tusma aniga layguma diraayo farxiyo cabsiyena wanaag waxaan hayn kala shaqaynayso ayadoon wada hadlin tusmana tallaabo ma qaadayso iska daa farxiyo inay tallaabo qaado ayadoon tusma aysan wada hadlin anigii ayay iga walwalsantahay waxay kasii dardaarmaysay inaanan waxaysan ayadu ogeyn aanan samayn ama aanan ku fuudaanin tusmo marka waxaan iri walaalayaalow markaan arkay maaragtay exactly ninkaan hadda soo hadlaaya maanta ninka hadda maanta muxuu yiri laysoo diray kilibkiisa farxiyo kaba yaray naag hawiye aad tahay naag mursa aad tahay reerays yaqaana ishaayo yaan lagugu soo didirin tusmo yiri cajiib exactly wixii aan ka cabsanayay gabdhaha aan ka qancinayay uu ku hadlaay marka bahalka qabiilka la yiraahdo inuu cajiib yahay gabadhaas wanaaga iyo gabadhaas sharafteedii ila ilaalinaysay ee weliba ayadii kaga sii walwal badnayd inay ka aaminsan yihiin farxiyo cabsiya inay ka soo horjeedo tusma ama ay dhibaataynayso oo qabiil ay ku dhibaataynayso markaan arkay aan waxaan ku yiri
intiinaan meesha ku jirto hal gabar oo aan aad u aaminsanayo qof weyna oo maarata muxtarim aad u ixtiraama waxaan yidhi waa codka abaayaan usoo dhigaya dhegaysta Farxiyo Cabsi iyo codka ay ii soo duubtay aniga ay igaga sabrayso tusmo hadda gabdhihii meesha ku jiraan u dirayaa jas inaan ku qanciyo ayaga inaysan Farxiyo Cabsi iyo tusmo aysan ku ahayn maarata weerar aysan ku ahayn ama aysan dhibaataynayn ilaa waan arkay waxay aaminsanayeen inay Farxiyo Cabsi iyo tusmo dhibaataynayso marka codkii Farxiyo aniga ii duubtay ee wanaagga ahaa baan u diray ayagii waa codkii waxa maanta loo diray nin kamida baraha bulshada kuwa ka qaaqleeya ka sheekeeya marka codkaas asaga ah ee Farxiyo Cabsi maanta ee ninkaasi tuushiday uu leeyahay dhageysta gabadha Farxiyo Kabayar ah sida naagtaas Farxiyo Cabsi ay u dirayso ila dhageysta uu leeyahay shishida meel uu idinka anfacay male kuma dagaal gali kartaan oo codkii cod xiqdi iyo xumaan ku jirta maaha meel laydi kama anfaco aniga Farxiyo Cabsi iskuma kaaga diri kartaan oo Farxiyo Cabsi codkeeda qaabku ku baxay iyadoon ogeynba inaan dadka aaminsan inay tahay qof qabiilista ama ninka qabiil arrintiisu ku soo gashay dadka aaminsan inaan ka dejiyay oo aan codkeedii wanaagga ahaa u diray xataa Farxiyo dib uguma sheegin oo ilaa dadka markaad kala maslaxado ama aad wanaag kala dhex dhigto martaasaa looga haraa xataa Farxiyo kale uguma sheegin uma dhihin Farxiyo codkaagii aan u diray markii aan arkay dadku inay kugu kacsan yihiin codkaa ii soo dirtina Safiya iga saraysan u diray xataa ma dhihin maanta Farxiyo wada hadalnay markay aragtay codkeeda baraha bulshada wareegaya marka waxaa la qof wanaagsan tahay marka walaalayaal exactly wixii aan ka baqayo dadkaas waxyaabihii ay igula hadleen habeenkii ee aan qalbigooda ka saarayo ninkii ku hadlay Farxiyo Kabayar oo lagu adeegsanaya marka waa islaamaya waxaan u sheegayaa dadka baraha bulshada ku jiro 10 dambe lagu jira waa leedka soo milaayay Soomaaliya ilaa 10 dambe xataa hal mid ay sheegaya tusmo horan oo u sheegay dadaan waxba tareynino tusmo dadka ku sii dirinina tusmo dadaan waxba tareynino dhibaato u sii maleegin oo dhibaato iyo colaad u sii abuurina tusmo aniga hadda waxay aaminsantiin tusmo inaan isku baabaanay tusmo xal ma habeen hore isla hadlaynay aniga iyo walaa Farxiyo Cabsi iyo walaa cid kale aaminsantiin ama tuunsantiin inay dhibaataynayaan habeen har iyo habeen kama seexano arinteeda Safiya tusmo annaga walaashan tahay mar waa dumar mar waa walaashan oo gabar Soomaaliyeed ayadoo hooyo Soomaaliyeed Safiya tusmo dhibaatadeedu waa dhibaatadeena nagamana xigtaan waxna ma taraysaan intaan anagu tari karnana ma taraysaan marka waxaa idin leenahay daral ku daga ma dagaalamay taqaanana dagaalkana